بسم الله من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. asalaamu calaykum asxaabta ku xidhan beedkayga boxrat ee kusoo dhawaada top 5 hiro oon idiin soo diyaariyey waxyaalaha adduunka ugu layaabka badan leh ama aan la arag kusoo dhawaada nambarka waxaan ugu bilaabi doonaa insha Allah nambarka shanaad gabadhani tiktok bay isticmaalaysay oo tiktok bay ku jirtay video iska duubaysay laakiin bal halka dambe waxa uga muuqday waa waxaas weji wax saad u aragtaanba wax ka muuqata waa il iyo af sankii bal maxaad ku qiyaasi lahayd waxyaalaha adduunka ku qariibka ah ee dadka la yaabaan shaydaan miyaabaad leedahay bal muxuu noqon karaa dadku horumar bay gaadheen imika wax walba kamarad baa laskaga duubayaa balse gabadheeni umay jeedin maysan arkayn waxaan ka dambeeya balse markii ay iska duubtay fideoga ayay ogaatay in gadaasheeda ama weji uu soo baxay nambarka waxaan gudbi doonaa nambarka afraad rag safar ah oo ku jiray safar gaari watay ayaa hal mar waxa gaariga leerkiisu qabtay waxaanaad arkaysaan ma qofna walba lagu qiyaasi karaa ma shaydaan baa bal adiguba waa kaase waxaan macquul qofkaan rumaysan karayn marka qaarna dhici kartaa balse kaas intaan kusoo rakoobo fideoga xiga baan gali doonaa fideoga saddexaad ninkani gurigiisa iska joogay laakiin wuxuu la yaabsanaa uu aada ula yaabay guriga alaabtii oo iska dadaadanaysa alaabtii guriga iska socota uu qaadan lahaa balse markuu sariirta aaday muxuu arkay sariirtiisa markuu tegay wuxuu arkay waxaan qof bili-aadan way u eg tahay oo gacmo dhaadheer hadiyihiisii faraxsaana wejiga teeda labaad waxa kaaga sii daraysaa maade kala yaabaysaa qofkan inta uu fadhiyo waa qof iscunaya gacmaha dhaqaajinaya gidigiisa waad moodeyso in dee lagu soo degayo sidii qof shaydaan ku jiro oo kale balse bal in yar aanin codkayga idii xidho si aad idinkuna u yara daawataan ये लगता है हम इसकी ट्रेक कोई कहते हैं ये बच्चे जो मेंटल है और कोई जो कहते हैं कि इसके अंदर sacabar ka bacdi waxay bilowday inay gacmaha dhaqaajiso ama gacmahayga socda saad arkaysaanba waad arkaysaan gacmahayna dhaqaajinayso laakiin wejigayga marka lagu qabto amaad wejigayga aragto waa weji ka duwan wejiyaasha caadiga ah waayo qofkani maahano qof weji caadiya leh balse inta kamarada laga duubayo waxba gidigayga saa hor cararaya isla daqiiqada sida waxu hormarana wax bilowaysaa inay gacmaha dhaqaajiso sidii cidiyo loo kaloo dhulka xagxaganaya balse haddaba waxa uu la yaabkaa markii wejigayga ama madaxayga kor soo qaaday waa il keliya hataa oo weyn ishaa kale hataa waxaan ahayn lama arkayo waayo wejigayga ishaa kale hataa ku yaala weji caadiyo bilaadan ma lahan waxyaalaha adduunka la yaab kale balse ninka ka duubaya waa nin adkaysi iyo dhiiranaan leh waayo waxaa gurigaaga soo galay aad gurigaaga dhexdiisa ku arkayso bal maxaad samayn lahayd adiga laftigaagu ma daaqadahaad ka booli lahayd mise dee waad carari lahayd markaad aragto waxaan weji caadiga lahayn oo ishaa keliya hata leh oo markuu madaxa kor u qaaday il keliya hata kusoo eegayso laakiin qofkani sidaad u arkaysaanba waa qof ugu talagalay inuu duubo aan ka gudubno laakiin waxaan u gudbi doonaa fideoga labaad wiilkani waa wiil carab ah oo wadanka masar ninkani wuxuu arkay isagoo kamarad waxa ku duubaya wiilkan waa youtuber balse wuxuu arkay qofkan isagii saaxiibiyey waxay damceen inay ka cararaan oo ay ka fogaadaan waxaan daba socdaa ama kolba meesha ay istaagaan lasoo istaagaya oo wax dheer ood arkaysaan isla daaqadii yareed wiil baa rabay inuu eego markay kasoo carareen meeshii laakiin maxaa qabsaday balse isla daqiiqadii yareedba wiilkani meesha uu ka cararay isagoo saddexdoodiiba wiilka youtuberka iyo kii kamarada hayba saddexdooduba iyagoo istaba cararaya ayay meesha ka carareen balse daqiiqad kadib bacdi yadii ama qofkii daba socday oo laba qof markana ayaa kasoo horbaxay isla markii ay kamarada ku qabteena waa ka cararay balse halkii ay ka eegayeen isla iyaga dhinaca bidixda ka xigta ayuu soo maray waad arkaysaa man umalayaa haddana
halkii ayay ka carareen iyagoo mar labaad ka baxsanaya meesha ay taagan yihiin, waayo waxani ma ahan wax ka haraya 3 jeer 2 jeer ay kasoo carareen ay kasoo baxsadeen xataa ee haddana daba socda. Aynu ka gudubno fiidiyowga ugu dambeeya. waa wiil carab ah. wiilkani guri laga gubay oo muddo badan aan la deganayn ayuu soo booqday, balse laakiin muxuu ku arkay? bal in yar in idinka kala baxo iyo waxaad aragtaan. بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله شو هذا يا اخوان بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله qaliga kulligiisa oo daawanaysanba ninkani waa inaan aad guriga ugu shanqarayo oo mar kab loo tuuro mar meesha dab uga kaco. ninkani aad buu u baqayaa isagoo kolba dhinac u cararaya oo tooshkiisa kolba albaab ku hadinaya, waayo albaabadiiba xataa u garaacmaya oo kolba albaab loo furaya. balse isagu wani joogi kar la waayo isaga ugu soo talagalay oo kamaradiisa iyo tooshkiisa u soo qaatay halkan. balse isagu sida u duubayo uu kolba dhinac ugu socdo ayuu wuxuu gali doonaa qolka idiga soo horjeeda. qolkan waxaa dhex hurda ama dhexdiisa fadhiya waa wax shaydaan u eeg oo ma shaydaan baa ma bini aadan baa ma caddayn karo, laakiin isagu wuxuu qolkan ugu galayaa wuxuu ka baxsado uu tooshkiisa iyo kamaradiisaba iloobi doono. bal ila eega hadduu kamarada nagu qaban doonaa. waxaas waa waxaa hurda balse uu ka cararay ninkii meesha. asxaabta like and share.